sida u jeedaa muuqaalkan oo caddeyn u ah shaqada uu qabtay taliyaha tekeda magaalada muqdisho ama furdada muqdisho maxamed qadar waxa uu burburiyey shabakado waaweyn oo waddanka si aan xad lahayn u soo gelinayay maandooriyayaal nooca kale uu ka halis badan yahay laakiin meeshii la rabay ninkan in lagu sharfo darajo weliba la siiyo oo shaqadiisa bulshada horteed lagu amaano isagii ayaaba hadda waxaa loo soo istaagay oo loo soo bambaxay in xilka la dhaafiyo oo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Asad Diyaano iyo koox kale oo shabakada ah ayaa ninkan dagaal culus ku soo qaaday sida xog hoose ah hadda ku heleynana waxa ay rabaan oo ay damaacinayaan inay ninkan lafta dhunka gashay ku noqday oo kale ee iska horwareejiyaan waxa ognahay dekada magaalada muqdisho inay aad uga soo degaan maandooriyaal halis ah sida qamriga bilibiliga iyo waxyaabo kale oo aan la sheeginba qaarkoodna maxkamad ayaaba go'aano ka soo saartay oo dhahday waddanka qulqulkan ku socda laga hortago markii uu tagay maxamed qadar oo loo magacaabay dekada isla markii waxa uu sheegay in wax walba oo soo degay ay tahay in la fiiriyo oo ciidanku si ay tahay u baaraan oo aan lagu haleynin kaliya mas'uuliyiinta kale ee furdada halkaas waa meesha u suuro gelisay in howshiisii ugu horeysay in a week wax la siman isagoo ku jira isbuuc uu qabto konteenaro ay ka buuxaan waxyaabahan waxaa howlgalkaas lagu burburiyey shabakad isku xiran sidoo kaleeto qaarna xabsiga ayaa la dhigay qaarna shaqadii ayaa laga qaaday oo laga eriyey taliyaha ciidanka booliiska Master Diyaano iyo rag kale oo saraakiil ah waxay difaacayaan shabakadahaas runtii la burburiyey waxaana meeshii ninkan ay intay ku garab noqon lahaayeen ay isku kooxaysteen inay ninkan xilka dhaafiyaan waxaa la qoray oo la diyaariyey waraaqad la rabo in xilka looga qaado maxamed qadar hase yeeshee markii warqadaasi taliyaha booliiska uu diyaariyey waxaa si hordhac uga hor yimid sida aan xogta ku hayno ninka ee ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale Mahad Maxamed Salaad oo isaguna soo farageliyay arinta kuwaas oo runtii aaminsan ninkan in shaqada qaranka uu haayo ay tahay shaqo weyn oo meelaha waddan in laga ilaaliyo u baahan shaqadii uu laga rabay inuu ka qabto dekada alaboorka waa muhiim waddanka wax soo galay hadaan ogeyn halis waay marka ninkan hadduu kontrabaan qabtay berina waxaan aaminsanahay inuu qaban lahaa waxyaabaha kale halista amniga ah sida argagixisada meelaha wax loo soo martay yaa ogaa kara halka nin ee cadaalad u soo bambaxay hadii la isdhaafiyo sida kontrabaan u soo galay ayuuna u soo gali karaa waxyaabahan kale sida haddaba xaaladdu ay marayso ninkan dhalinyarada ah qarankiisii waa ilaaliyay inta tabartiisa ah waa nin dawladdu ay maal gashatay oo baxay oo qurbaha meelo badan oo kamid ah wax ku soo bartay dhalinyaro ah dadaalaya oo ciidanka macni waxyaabo waxa jira qof uu jecel yahay jecel ayaa isaga shaqada u dheer oo waxaan wuxuu rabaa inuu run ahaantii si sax ugu adeego waana halka ay iska qaban laadahay marka adigoo raba wax taacada inaad u shaqaysid oo si sax u qabatid lagu dhaxgeeyo dad kale oo aan rabin inay si sax ah dalkooda ugu shaqeeyaan meeshaas marka waxa ka imaanaya conflict of interest adigana saana rabtaa ayagana saana rabaa halkaas ayay baahashi iska mari laadahay waxaana la qorsheenaa hadda in inta xilka isaga laga qaado lagu bedelo shakhsiyaad kale oo hay'ada ay afka hore ka tahay halka isaga mayada ay ka soo horeyso oo wax walba ilaa laga tuso ma aha garoonka macna dekadaas aysan ka bixin wixii ka soo kordha warkan idinka ayaa u horeeyay laakiin war degdeg ah oo soo gaaray ayuu ahaa xogtiisa hoose oo helnay. Assalaamu calaykum.